xikmadda iyo caqli badnaanta. Xikmaddu wax xidhiidh ah lama laha da'da. Waxaad la kulmi kartaa nin 60 jir ah oo bilaa xikmada oo ku marin habaabiya. Waxaanad sidoo kale la kulmi kartaa qof aad kaaga daayar oo xikmad iyo caqli badan oo ku caawiya. haddii aynan ku darin caqli iyo xikmad, ficiladeena waxay noqon lahaayeen qaar ku salaysan damicin. waxaynu raaci lahayn dareenayn innagoo oon eegin natiijooyinka xun ee ka dhalanaya ama dhibaatooyinka aynu ku sababayno nafaheena iyo nafaha kalaba. hal erey oo xikmad ah oo aad ka heshay qof xikmad badan ayaa kaaga faa'iido badnaan kara khibrad kugu qaadata inaad ku hesho dhowr sano oo noloshaada ah. hal erey oo aan ka qaadanay qof bilaa xikmad ahina waxay inagu hogaamin kartaa inaynu qaadano go'aan aynu mar dambe nolosheena qoomamayno. haddii ay jirto waxaynu dhab ahaan ugu baahannahay si aynu ugu noolaano nolol farxad leh, taasi waa xikmadda iyo caqli badnaanta. waxaan maanta idin hayaa 6 tallaabo oo aad ku noqon karto qof xikmad iyo caqli badan. Lambar 1, weligaa go'aan dhaqso ha u qaadan. mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee xikmaddu waa inaadan si dhaqso ah go'aan u qaadanin. tusaale ahaan, haddii aad 3 cisho gudahood ugu jawaab celinayso shirkad kaa codsatay inaad u shaqayso, waa inaad u jawaabtaa oo keliya maalinta 3aad, xitaa haddii aad horey u garanayso waxa aad doonayso. haddii aad rabto inaad fariin muhiim ah u dirto qof saameyn kara noloshaada, qor oo diyaari warqadda, balse horey ha u dirin. dhowr daqiiqo kadib waxaad arki doontaa fikrado cusub oo maskaxdaada ku soo dhacaya, kuwaasi oo kaa caawin kara inaad fariin muhiim ah dirto. si aan qodobkan u soo koobno, waa inaad ficilo samayn ilaa inta aad waqti ka hayso, xataa haddii aad si fiican u garanayso waxa aad rabto inaad samayso. Lambar 2, ficil ha samayn ilaa aad ogaanayso xogta kaa maqan. waxaan filayaa inaad horey u waajahday xaalad ah inaad mid ka mid ah saaxiibada u sheegtay dhibaato ku haysata oo uu isla markiiba xal ku siiyey, isagoo oon si buuxda u fahmin siday wax u jiraan. ka hor inta aadan wax talo ah siinin qof kale ama aadan wax ficil ah samayn, ugu horreyn isku day inaad sawir buuxda ka haysato oo aad si fiican u fahanto sida ay wax u jiraan. haddii qof wax xun kaaga sheego qof kale, markaaba qofka kale ha xukmin oo ha cambaarayn, balse isku day inaad xogta kaa maqan hesho adigoo qofka kalena xiriir la samaynaya oo ogaanaya waxa lagu sheegayo in ay wax ka jiraan. Lambar 3, fahan wax kasta sababaha ka dambeeya. qofka markasta dadka si cadho leh ugu qayliya waxaa laga yaabaa inay haysato dhibaato nolosha ah oo uu xallin kari laayahay. qofka markasta ku xaasida waxaa suurtagal ah inuu dareemayo hooseyn iyo inaad wax kaga fiican tahay. qof hadduu ku necab yahayna micnaheedu waa inuu qofkaasi kaa baqayo. si aad u noqoto qof xikmad iyo caqli badan, waa inaad heshaa aqoon kugu filan oo ku saamaxaysa inaad ogaato sababaha ka dambeeya dabeecadaha iyo habdhaqanka qofka. inaad urursato aqoonta noocan ahi waxay sababaysaa inaad samayso ficilo ka duwan ficilka aad samayn lahayd haddii aadan ogaateen. Lambar 4, akhri oo noloshaada ku dabaq waxaad baratay. haddii aad wax badan akhrido adigoon waxaa ficil ahaan u samaynayn, waxaad noqon doontaa qof wax akhriska iska jecel. haddii aad ficilo samayso adigoon waxba akhrinayn oon wax badan ogeyna, waxaad noqon doontaa qof jaahil ah. haddii aad wax badan akhrido isla markaana waxaad akhrido naftaada ku dabaqdo oo aad isticmaasho, waxaad noqon doontaa qof caqli iyo xikmad badan oo wax badanna og. xikmaddu waxay ka kooban tahay aqoon iyo khibrad nololeed, labadaana waa loo baahan yahay si aad u noqoto qof caqli badan. haddii aad rabto inaad noqoto qof xikmad iyo caqli badan, talada ugu wanaagsan ama ugu fiican ee aan ku hayo waxa ay tahay akhri wax badan, isla markaana samee oo ku dabaq noloshaada wixii aad akhriday. Lambar 5, wax indhe. ma ahan inaad gasho god dheer oo dhulka hoostiisa ka qodan si aad u ogaato khatartiisa, sababtoo oo ah waxaad ku ogaan kartaa xogta mid la mid ah adiga oo arka qof kale oo ku dhacaya godka. haddii khibradda aad noloshaada ka helaysa kaa dhigayso qof caqli badan, inaad dadka kale khibradooda wax ka sii barataana waxay kaa dhigaysaa qof aad u sii caqli badan.
Lambar 6. Ha samayn dadka badankoodu waxay sameeyaan. Dadka aad la kulmi doonto ma aha dad intooda badan caqli iyo xikmad badan. Ficilada ay sameeyaanna waxay intooda ugu badan ku salaysan yihiin dareenadooda iyo laablakac iyagoon xog buuxda hayn. Haddii aad rabto inaad noqoto qof caqli iyo xikmad badan, waa inaad ogaataa inta ugu badan ay tahay inaad samayso wax dadku aanay samayn. Inaad dadka dhinac ka raacdaana weligeed kaa dhigi mayso qof caqli badan. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxay noo balana muuqaalka xiga. intaan la gaarinse waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fii amaanillah.